dowladda hoose ee degmada Gabiley oo daahfuraysa mashaariicaha horumarka ee bulshada ay ugmatay ayaa maanta duumisay 3 guri oo ku yaalay dariiqa ay maraysa wadada Farhada oo isku xidhi doonta Masjid Jaamaca Gabiley iyo Buurta Sharif Cali. wadadan ayaa sidoo kale yeelan doonta bridge taasoo saamaxaysa in bulshadu ay dhisato xaafadda Sharif Cali. arrintaasi ayaa kor u qaadaysa baaxadda magaalada oo dhinaca waqooyi u dhismi doonta si loo hakiyo beeraha la deegaaminayo ee dhinacyada koonfurta magaalada. cagafta ayaa duuminaysa 3 guri ee wadada ku dhacday taasi oo raali ay kaga ahaayeen mulkiilayaasha guryahan iska leh oo dowladda hoose ay guryo kale u dhistay xagga qaarkoodna lacag ahaan loogu celiyay. barsaabka gobolka maayarka degmada xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka cuqaal iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ayaa si rasmi ah maanta u dhagax dhigay dhismaha wadadan casriga ah ee afartahaad noqonaysa. odayaal xildhibaano xogayaha dowladda hoose degmada iyo muwaadin Mawlid Xasan Barre oo guryaha la dumiyay mid kamid ah laha ayaa sheegay in muhiim tahay in magaaladu ay fido. dadweynuhu waxay noo soo doorteen inaan u fulino baahiyaadkooda gaarka ah sida wadooyinka biyaha iyo wax la mid ah. tan waa mid kamid ah in wadooyinkii aan u sameeyno si ay magaaladan u ballaarto. wadadan waxay tagaysaa ilaa Buurta Sharif Cali bridge-keedana la raacin doonaa oo dowladda dhaxaa hawjii fulin doonta insha Allah ta'ala sanadkan waliba gaar ahaan. maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu aragno wadada afartahaada ee ka baxaysa Masjid Jaamaca weyn ee magaalada Gabiley bartakeeda ee Sharif Cali qabanaysa isku xidhaysa Sharif Cali ilaa masaajidka oo guriyihii ku jiray la duminayo la bilaabay hawsheedii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka oo hogaaminaya maayarku. waxa weeyaan magaalo waxay sharaf ku yeelataa wadooyinka haddii aanay wadooyin lahayn labada dhinac u kala gudbaya dee magaalo ma noqoto. magaaladu waxay sharaf ku leedahay dadkeeduna sharaf ku yeeshaan marka bilicda magaalada la soo saaro dadkeeduna markaas ay ammaan yeeshaan xukuumadeedu markaas ay ammaan yeeshaan. maanta waxa dhaqaaqday hawshii loo ballamay in ay magaalada sidaa u socoto ma ahan wadadan Sharif Cali kor iyo hoosba wadooyinku way u baxayaan. nin waliba ha ku cibro qaataan u leenahay maanta guriyo waaweyn oo dad akhyaar ay lahaayeen iyagiina raalli ka noqdo in la duumiyo oo magaalada sharafteedu soo baxdo ayaa cagaftii la geliyay oo wada arkaysaan maanta ninkii wadda ku soo hagaagtayba gobolkan Gabiley waxaa la doonayaa in aanad gorgortan iyo hadal iyo cunuxuno aanad la imanin wadajir u shaqeeya idinkoo gacmaysaysa gobolka cagaaran magaca ka muuqdan lahay horumarka ha loo dhaqaaqo waxa la qabto saasaanu leenahay taana waa bilowdeen aabad kuma naqana wadadaasi waxa wada aad iyo aad u baahan tahay degmada Gabiley. waa degmada Gabiley xaga waxa ka xiga waa beeruhuna waa meesha ku caan maashay Gabiley oo deegaanka xaq loo dhaafmo doono. wadadii xaga u tagaysay tii galbeedku waa bridge-kii galbeedku u dhamaaday bridge-kii waqooyiga ee qaybta maxaan kula Sharif Cali ee bilicda magaalada ku xidhnayd abbilowdeen maanta aad baan ku mahadnaqaynaa waa idin garab taaganahay dhammaantiin. Barre aana muwaadin ku dhashay Gabiley ku koray waxna ku bartay kuna dhaqmay waxaan halkan ka cadeynayaa anigoo kamid ah muwaadiniintii ay guryahooda ku hagaagtay wadadu markaan eega gudoomiye horumarka diyada dadaalka ku jiray gurigiisa deegaanka waxaan go'aan ku gaadhay si bilicda magaalada u soo baxdo in gurigaygii anigoo raalli ku ah aan baneeyo si wadadu xaafadda Sharif Cali inuu gaadho magaaladeena noo qurux badnaato. waxaan u sheegayaa muwaadiniinta kale wadooyin ku soo hagaagi doonaan iyaguna inay ku daydaan sidaan yeelay socdaan iyagina ay guryihii ka baxeen si sharaf leh oo qadariyo maamuus leh taasoo ay garab naga siiyeen dadweynihii reer Gabiley iyo agagaarkii wadada ay mareysay xaafaddu ay wadada ay marayso. waxa kale sharaf noo ah in aan maanta aanu bilownay wadada afartahaada ee ka talaabasa Sharif Cali. ugu dambeyntii maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo barsaabka gobolka Cabdikariin Aadan Diiriye ayaa sheegay in dowladda hoose ay mudnaanta koobaad siinayso sidii bulshada looga hagabtiri lahaa adeegyada dhaqan dhaqaale. maanta taariikhdu tahay 16 bishii 10aad halkan aynu joogno oo aanu ka dhagax dhigano wadada wajigii labaad ee wadada Sharif Cali. wadada Sharif Cali iyo isku xidhaysa Masjid Jaamaca saa ka warqabtaan hore waxaynu u fulinay wajigii koobaad oo ku jooga wada Farhada oo ku joogta wakaalada biyaha horteeda. wajiga labaad oo runtii ka kooban wadadaasi oo lagu xidho dooxa iyo biriish ayaa maanta runtii shaqadeedu halkan ka bilaabmaysa. wadadan fayska labaad waxa runtii carqalad ahayd guriyaha ka hor dhisnaa saa ka warqabtaan guriyahaas 3 guriyahaas
sharaf bay noo tahay runtii maanta in halkan inagoo isku dhan oo dadkii guryahaasi lahaana ay goobjoog yihiin in guryihii la dumiyo oo danta gaarkaa laga horraysiiyey danta guud waddadaa Shariif Cali ee afartahaada oo waddo qurux badana oo ku bixi doonta Shariif Cali isla markaana inoo ogolaan doonto in dhismuhu uu tallaabo waqooyi iyo buurta oo aynu badbaadino dhulka beeraha ee magaaladu ku fidaso waan u mahad celinaynaa runtii cid kastoo hawshan ka qayb qaadatay oo ay ugu horeeyaan mulkiilayaasha guryahaasi oo Mawlid Xasan Barre oo gurigan aynu hadda joogno lahaa cagaftu ku jirto iyo Xaashi Cismaan oo ka wakiila guriga labaad oo laba guri xaas runtii ka kooban aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin inay xukuumadda iyadoon buuq iyo hadal midna ka iman ay nagu tixgeliyaan maamul ahaan in la dumiyo oo waddada laga sameeyo halkan runtii 3 mashruuc baa ka hirgelaya mid waa guryaha la duminayo iyo dayrarkooda wixii hor yaalla waddadaa sameyn talabaadna waa waddadaas oo la farhaad noqon doonta sida waddada horeba tahay iyo ta saddexaad oo ah biriishkii Shariif Cali biriishka Shariif Cali waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta oo gobol ahaan inaga caawinaysa dhisitaankiisa 20 bisha qandaraaskiisii la furi doona insha Allah taala isaguna oo bilaamaya marka shaqadaasi si wada jira bay wada bilaamaysaa hadday tahay waddada iyo hadday tahay biriishkaba waxaan rajaynayaa inay wax badan ka bedeli doonto isku socodka magaalada qofka bilaadanka hantidiisa baa gashay waxa laga yaabaa waqtigu dhisayay inaanu ogeynba inay halkan waddo tahay inaan qorshaba jirin ee iska degay waayo markii dalka lagu soo noqday meel walba waa la degay nin waliba halkii uu siray halkan baa kugu habboonee aad yeelan karaysaa ayuu degay tiina iminka waxaan aragtaa inaynu ka korayno oo dadkuna garteen inay waddooyin degeen dawladduna garatay inay u naxariisatay mar labaadka waxaan u mahad celinayaa golaha deegaanka gudoomiyaha golaha deegaanka duqa degmada Gabiley gudoomiye ku-xigeenka xogayaha dawladda hoose xildhibaanada dhammaantood way ku mahadsan yihiin hawshaas ay ummadooda u hayaan iyo sida ay markasta ugu heelan yihiin inay dadkooda wax u qabtaan وجعفر عول هلالي تلفزيون كسام مقالة ذا قبل